kulan wacan daawadayaal halkani waa channelka warbaahinta codka gobolka Banaadir ku soo dhawaada qodobada wararka waxaana ugu waaweyn ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha UNHCR u qaabilsan bariga Afrika gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir dhanka arrimaha bulshada oo gudoomisay shir looga hadlayo arrimaha waxaa hoos yimaada xafiiska arrimaha bulshada degmooyinka Shangani iyo Darkinley oo soo baxay wareegga sideed dhamaadka ee tartanka kubadda cagta degmooyinka Muqdisho ee ka socda garoonka Engineer Yarisow iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson oo sheegay in weerarkii lagu qaaday goobaha shidaalka ee Sacuudiga Iiraan ka dambeysay kuwaas waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii warkeena ugu waaweynaa u diyaar garooba asiga faahfaahsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa xafiiskiisa maanta waxa uu ku qaabilay wafdi heer sare oo ka socda qaramada midoobay gaar ahaan xafiiska barakacayaasha ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano UNHCR wafdiga ka socda Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa ee la kulmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa horkacayay agaasimaha UNHCR u qaabilsan bariga Afrika ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa warbixin ka dhageystay wafdigan ka socda Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa gaar ahaan xafiiska UNHCR waxaana uu sheegay in xaaladda xilligan ka jirta Soomaaliya ee dhinaca barakacayaasha ay aad ugu baahan yihiin in loo gargaaro ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa wuxuu sidoo kale ammaan u jeediyay hay'adda Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa u qaabilsan dhanka qaxootiga ee la yiraahdo UNHCR wuxuuna sheegay in shaqo badan ay ka qabteen Soomaaliya muddadii dheereed ee Soomaaliya marxaladaha kala duwan ay ku jirtay waxa uu sidoo kale ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uu wafdigan ku booriyay inay halkaas ka sii wadaan shaqada adag ee ka hayaan dhanka barakacayaasha iyo qaxootiga intaba Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaa ku nool barakacayaal aad u fara badan kuwaas oo dibadejin loogu sameeyay magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka kuwooda nabadda ah waxaana sidoo kale hadda la wajahayaa qaxooti fara badan oo kasoo laabanaya dalalka dariska ah maadaama Soomaaliya ay tahay dal nabad ah oo horumar ku tilaabsanaysa gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca arrimaha bulshada Basma Amir Ahmed Chiketi ayaa waxa ay gudoomisay shir looga hadlayo arrimaha waxyaha hoos yimaada xafiiska arrimaha bulshada gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir dhinaca arrimaha bulshada iyo wacyigelinta Basma Amir Ahmed ayaa waxa ay sheegtay in xafiisyada hoos yimaada sida nadaafadda caafimaadka sportska iyo degdegista in shaqo wanaagsan ay ka socdaan waxayna ku dhiirigelisay xubnaha ka shaqeeya iyo sidoo kale agaasimayaasha xafiisyadaasi in shaqadaasi ay dardar geliyaan oo ay sii wadaan maadaama shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Soomaaliya ay shaqo wanaagsan uga fadhiyaan waxay tilmaantay in nadaafadda caafimaadka iyo sportska ay yihiin shaqo si wanaagsan uga socda loogana dareemi karo 17 degme ee gobolkan Banaadir iyadoo sidoo kale ammaan u soo jeedisay shaqada waaxda degdegista oo dadku ay ka qaataan warqadaha dhalashada iyo sugnaanta waxay sidoo kale ay tilmaantay inay sii wadi doonaan shaqada waaxda arrimaha bulshada iyo wacyigelinta dowladda hoose ee Xamar si loo gaarsiiyo ilaa heer degmo ilaa heer laan intaba degmooyinka Shangani iyo Darkinley oo ka tirsan gobolkan Banaadir gaar ahaan kooxaha ku ciyaaraya magaca degmooyinkaasi ayaa u soo baxay wareegga 8 ee tartanka kubadda cagta degmooyinka Muqdisho oo ka socda garoonka kubadda cagta ee Engineer Yarisow ee magaalada Muqdisho degmooyinkan ayaa waxa ay ka soo baxeen gruubyadii ay ku jireen waxaana hadda ay u soo gudbiyeen wareegga 8 sida ay sheegeen maamulka ciyaaraha gobolka Banaadir tartankan oo mid xiiso leh ayaa wuxuu ka socdaa garoonka Engineer Yarisow Ex-Conis ee magaalada Muqdisho degmada Cabdicasiis waxaana hadda kooxuhu ay marayaan meelo marxaladaha waxaana koox walba ay doonaysaa in tartanka qaybaha xiga ay u soo baxdo ra'iisul wasaaraha waddanka Britain Boris Johnson ayaa waxa uu weerarkii lagu qaaday goobaha shidaalka ee waddanka Sacuudi Carabiya wuxuu ku eedeeyay dowladda waddanka Iiraan Boris Johnson oo maanta ka dhoofay magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska kuna sii jeeday magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa warfidiyeenada u sheegay in weerarkaasi uu sheegayo inay ka dambeysay dowladda waddanka Iiraan waxaa la filayaa in magaalada New York halkaasi uu uga qayb galo shirka guud ee loo dhan yahay ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa Boris Johnson ayaa inta uu ku sugan yahay halkaasi waxaa la filayaa inuu la kulmo madaxweynaha waddanka Iiraan Xasan Rouhani warkii oo aad kala socoteen idaacadda codka dowladda hoose ee ciyaarey waanaga inta tani kulan dambe nabadgelyo